meel qurana bay ka aaminsan yihiin okay laakiin markaad soo dhex gasho waxaad ogaanaysaa inay soo kala tahay minasa naajixa ganacsiyada oo kale waxaan odhan karnaa waa birta koobaad ee waxa weyn lagu suuqgeeyo lagu xaysiiyo waxa weeyaan dee salisi ii badan aad ku samayn karayso lacag badan aad kasoo xarayn karayso dadka waxa weeyaan madadaalisaana muuqaaladii soo geliyaan mar walba waxay ka views badan yihiin ama ka daawasho badan yihiin amaba wax weyn dee dad ku xidhan ay ka badan yihiin dadyagu waxa muntafaca ee la intifaacsanaya soo gudbiya halkani waa Mehal Podcast waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Bilal Mustafa barnaamijkan waxaa soo geliyay Bilow Capital. Bilow Capital waa isku xidhaha maalgashadaha iyo loo maalgeliyaha. Si aad wax badan uga ogaatid, description-ka hoose ayaad ka helaysaa ciwaanadooda amaba bogowga rasmiga ah www.bilowcapital.com. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaynu arkaynay in qof walba uu raadinayo sidee caan loo noqdaa. Caannimadu maxay tahay? Qofku markuu caan baxo kadib maxaa ka dambeeya? talo xanuun may tahay mise waa wax iska caadi ah caannimadu ma wasiila mise waa qaayo halka loo socdaa mise waa halka ku gaarsiinaysa halka aad socotid su'aalaha iyo su'aalo ka fara badan bas aynu ogaano maanta waxa inoogu martiya Mehal Podcast Sir Fadhi ahlan wa sahlan aad baan saaxiib dhawahay bilaa aadna waad ugu mahadsan tahay inaad uga casuumtay Mehal Podcast shukran saaxiib aad baad mahadsantahay kullu waxa laga wareystaa wax walba cidii u helaa واتقانان على عام بيهاي وانا تقانان وراده كبيجين هيجري ما وحين مرجع سؤال هنا توصل نسكيب عادي وحين مرجع كبلابنا بالوام حي فتحي وعاني ما هذا كلمة وحويا ما شاء الله صعدا مسوى ماشي كوجارسينيسا هل كده صعدتي بالناقية bilaalow saaxiibta aad baad ugu mahadsantahay sida quruxda badan ee igu casuuntay waxa weeyaan Mehal Podcast aad baan saaxiibkaaga mahad celinaya sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa daawadayaashaada qiimaha badan leh ee ku taxan waxa weeyaan podcast runtii wax badan marka daawato waxa weeyaan ama dhageysato hadba wax badan kaaga kordhiya saaxiib su'aashii wadiisadaan u soo noqdaa caannimadu simple waxaan daayadeynano meelaha kale inaga waxba ka doonin أنا أذكرنا وبالشدة كل حدا قنت هاي إن وحويان شنطي قافي مال سوق بعد استحكم بدي كل قرن كريان وإحنا أذكرنا مرة عام بات حقيقة عام بات هاي هذيان أو إحنا أذكرنا تبغول هي بتكون إن كبدان بعد تذكر كل قرن يا كل حدا قرن عن مدو موسيلة مسوا غاية عن مدو يعني ما طريقي وحويان كل جارسيني مش دو سعتبه زي exactly وهدفكي أنا سعودي صاحب وحنا كم عنا كرنا واحد بقف يوحويان من صدق كيسها بفكر كيسه okay dadka qaar simbali waxa ka dhantay waanimo midna markan waxa weeyaan dacaanimada raadinayay caanimada wuxuu raadinayay sabab marka hadhow tolo marka dacaanimadii iyo hadafkii waxa weeyaan in dad badan aqoonsadaan uu gaaro at that time ba waxa weeyaan isna hadafkii uu socday ee weynaa waxa weeyaan dadka faa'iideysanaya shuuradiisa iyo caanimadiisa haddii xataa aan ku daro marka qaarkood waxa la yiraahdaa dadku horta ama Soomaalida hadii aanu eegnaba waxay ka dhigtaan qaayadii halka loo socdo kama dambaysta soo waxaad arkaysaa mararka qaarkood iyagoo u sameynaya wax walba sidii loo gaari lahaa caannimada taasina waxay ku noqonaysaa iyagiiba dib ugu noqonaysaa caqabad iyo xanuun balse xataa waxa uu sababaysaa mararka qaarkood in aragti mooyaane in uu qofku wax walba sameeyo sidii uu gaari lahaa uma eegayo محارمبا محلالبا wax wanaagsanba wax mustaqbalka ku soo noqonaya isagu jeedkiisa kaliya tuu socda waxa weeyaan magacaagu waxaan baxo wajigaaga dad baa aqoonsan wallahi saaxiib horta bilaalow waxaan oran kareynaa caannimadu waxa weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala sideenaba waxa weeyaan qof walba wuxuu ku abuuray damac ah inuu noqdo qof imtiyaaz ama waxa weeyaan mudnaan gaar ah dadka dhexdooda kule okay so هدفك كاساسي وجارو ما كدمك عن هاي ضد بدن كويا قانان وحويان برسل حديد وحويان دلغا دحغرانيو runtii de garashada lagu garanaya ama waxa weeyaan muuqaaga waxa weeyaan loo istaagayo ayaan oran karnaa in de mudnaan waxa weeyaan ila xad ahlugu siiyo so qofkii si uu xaqiijiyo mudnaanta taasa ama waxa weeyaan waxa ku dhax abuuran ayaaba horta caannimada inuu raadinaya Soomaalidu kaliya tina saaxiib kuma baana waxa weeyaan caannimada iyo raadinteeda bulshooyinka dunida oo dhan aadana oo dhan aba waxa weeyaan arinta tan ah waxa weeyaan jecel arinta tan wax walba u sameeyay sidii ugu gungaari lahaayeen laakiin bulshada Soomaaliyeed waxa ka duuntay bulshooyinka caalamka kale waa bulshada islaamka marka iyaga mar walba caanimadooda ama sidii caanimada ku raadinayaan waa inay dawaabidii sharciga ahayd ku xiraan
yes xataa waxaa jiray beri dhulalka intaynan u gudbin su-aasheena kale dhulka carabta waxaa jiray hashtag ka socon jiro ahaa laa tajcalu min alxamqa mashaahir don't make fool ha ka dhigin doqomada caan so yani waxaad arkaysaa haddii aad dhinac kale u fiirisay bulshadeena maanta cidday xooga saarayaan ama ay markaasi soo gaadhsiinayaan meel waa inta waalwaala والله الله ورنت هذا كهسته الله حفتي الشيخ مصطفى واحد لقى الصومالي waa dad dhageysteen todo waala xaqiiqo weeyaan taasi marka baraha bulshada gasho si madeen laba shay baa loo galaa ama entertainment baa loo galaa ama education baa loo galaa ama aqoon baa loo galaa ama madadaalo soo marka dadka inta madadaalisa ayaaba runtii aad uga badan waxa weeyaan inta waxa weeyaan aqoon ama waxay ummadaas wax ka dheefayso u soo gudbisa ta kale marka dhinaca kale ka eegto inta waxa weeyaan dadka waxa weeyaan madadaalisaana muuqaaladii soo galiyaan mar walba wax ka views badan yihiin ama ka daawasho badan yihiin ama wax weyn dad ku xiran ay ka badan yihiin dad iyagu wax muntafaca ay la intifaacsanayo soo gudbiya marka xaqiiqatan inta marka entertainmentiga soo gudbisa wax macquul ay soo gudbiyaan runtii xaqiiqatan waxaas entertainment ha laakiin wax macquul weeyaan laakiin waxa ka badan ba inta aan wax macquul ka soo gelin haddii aan ku sii socono barnaamijkeena صح marka qaarkood qofku hadaba markuu caanimada gaadho ama caan noqdo waxa dhaca in ay mabaadi'dooda isbedelaan talo waa maxay sababto qofku wallahi saaxib waxa ku xiran tahay qof iyo waxa weeyaan mabdiisan waxa weeyaan qof iyo garashadii weeyaan caanimada waxa la mid dad baa marka hore maalmahay shiidka yihiin soo madarag xaaraaminta yihiin magaalada indhaas ugu ka soo galayso kubiya nasaba mar alla laakiin maalinta waxa weeyaan jabku yarana qasaysmo ayaba waxa weeyaan kiiba ma taqaanay سو كذلك عانمد مصاحب والله مد أو حويان وهرساق ده يدوي الله سبحانه وتعالى بحيو إن أمد وحويان قلبي دودي ده وحويان الله محبك وقليو ضدك كويستاجان ضدك وحويان ده إن بدن ضد كم بدك وحنا علان أوكي سو مركين قف يسبدلوا وحن أران كرينا مركي ورا بقف كاسوحة قف ضعيف الشخصية يعني بيرسوناليتي الشخصية دي سواهد مدلو أهونك سو markii hore bay waxa weeyaan Allah wax isku qaad ma jirin laakiin maadaama imka numberska dad ku xiran ay xoogaa yara sareeyaan that's why baad u arkaysaa isagoo dadka intii kale wax weeyaan hoos u eegay ama iska sareeyay arka waxaan oran karnaa ضعف الشخصية simple waxa qofka mabdiisa binaas markii hore mabda aad ku taqaanay aabankiisa rasmiga ahayn oo waqtiga waxa weeyaan waxa la raahdaa waqtiyada Soomaaliya qofka la barto waxa kamida markuu de awood yeesho markaas nin gob noqda marka gobtan iska digay awlka rukaasi gunaha soo marka caanimadana waxay simbalay soo saartay waxa weeyaan de shakhsiyadiisi dhabta ahayd aadiya hata waxa arkaysaa ina anu shakhsiyan ilaalahan waxaan indhahayga ku arkay ama aqaanay dad Soomaalida ku soo galay markii hore shaarka sheekhnimada iyo wadaadnimada kadib markii meediyaha arkeen inaynan wax views soo jeedadu waxay ahayd views sida uu helay unan helayn ay waxa arkaysaa inkii khamiiskii tuur buuxu ya wallahi dadka naas waa buux dadka naas horta wallahi khalaaska Soomaaliya rag waxaan raahday iyo camalka sameynaysa ilaa subhanahu wa ta'ala dirtu sameeysan muhiima hada jeer marka aragto qof wax weeyaan sameeyay wanaag ku soo galay meel laakiin gadaal iska bedelay waxa weeyaan awlkii hore waxaan wuxuu sameeyay ma ahayn Allah subhanahu wa ta'ala dirti waxa ahayd magac raadis iyo dib bulshadan uu ku dhexnool yahay oo waji kaga raadinay marka ilaahna waxa laga baryaa inaanu wax weeyaan ilaahu waxa la dhahdaa Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ilaahay qalbiyada waxa weeyaan rogin oo xaq xun ha rogin kadib markaan soo aanusay marka waxa ugu daran qof aqoon diineed leh oo waxa weeyaan sidii geed ku yaalo bidixdi oo qalalay maxaa waa dhimay kaas rajo malada soo marka taasna sax waxay kala yiraahdaan sababta mabaadi'da qofka bedesha waxa kamid ah dadka commentiyada aan dhaweedeen aad arkayso mooyaane dad baa media la sheegay gabadh marka hore iska fuqaray ahaayeen Soomaalida dhexdeeda TikTok wax soo dhigdhigi jireen commentigii baa marka loogu soo qorqoray maxay alla waxay faqiirinta alla wax ma haysataan shiibad idin maxay sameysay inay fake life sameyso marka been hadana waxa imaaday in commentigii hadana isla halkeen ka beeysan alla sid ku noqotay caan waxay labada isha lacagta ku heshay waa wasinu ku daway
taasoo kale waa mid baa la odhan karaa wax kale la odhan karaa inay mabaadida qofku isbedelayo kolba liketiga commentiga sidii aynu sheegnay haddii aynu hore uga sii socono barnaamijkeena tiktoka iyo trending okay صح برت برنامجكن تيك توك ما منصدن iyo wax weyn bartan TikTok xaqiiqatan waa minasa naajixa weeyaan 100% okay marka waa mid laba aflaad boosad uga faa'iideysato okay haday noqoto wax weeyaan badan dadku xumaan bay ka barteen ama wax weeyaan dhanka waxa bila macnaga inay ka isticmaalaan dhankaas waa caan bay ku tahay wali baraha bulshada kale way kaga tilmaaman tahay hadaad u fiirsato dadiyooga wax weeyaan waa weyn ay kala aan baraha bulshada isticmaalaan TikTok meel quruna bay ka amisay okay laakiin marka soo dhex gasho waxaad ogaanaysaa inay soo kala tahay minasa naajixa ganacsiyada oo kale waxaan odhan karnaa waa birta koobaad ee waxa weyn lagu suuqgeeyo lagu xayisiyo waxa weeyaan de salisi badan aad ku samayn karayso lacag badan aad ka soo xarayn karayso haday noqoto dhanka waxbarashada waxa weeyaan sidoo kale xaggaana waa aad bay waxa weeyaan uga horumarsantay meelaha kale waxa laga yaabaa xog YouTube-ka 10 minutes fadhiyi lahayd in waxa weeyaan 1 minute hal qof ku soo koobo kadibna wixii waxa weeyaan aqoonta aad uga baahanayd aad waqti yar ku dhigato marka TikTok waxa weeyaan waxaan oran karnaa waa midii laba afle waa hadba sad uga faa'iideystoon laakiin bulshadana xaqiiqatan nasiib darrana waxa ah inay dhanka xun inta badan u isticmaalaan fatxiyahan caqabad noocay kugu noqotay in aad maadaama markii hore lagu aqaanay social media-ha ama barnaamijka bulshada waliba TikTok-ga dad islaxaa wada maalaa yani waxaas gaa soo gashay adstream muxtawa haadif oo wanaagsan samee maxaa kala soo kulmayseed والله صاحب بلالو حقيقة هرتا مد بان اكتشافي يعني بان اوغادي تان اكتشافين اوغادين wax weeyaan ummadu hadba wax la hortimaado weeyaan okay ummada hadii wax san oo wanaagsan la hortimaado xaqiiqatan waxa weeyaan wax ka faa'iideyaan hadii aan kaba views kaba like badan ba tan ama kan isluxaya waxa weeyaan kama ahul yaraanisid hadaad u soo gashay views like weeyaan ma fahamtay laakiin ani ahaan mar walba horta waxaan isku dayaa in muuqaalkaygan aan samaynayo qofku markuu furo uu bal wuxuun ka faa'iido in uu wuxuun ka faa'iido wallahi faanayga ma aha marmarka qaar markan muuqaaladeedu koobkoobay TikTok waxa si wanaagsan markan dan siraadimka dib u daawo ama muuqaalo hore oo kale aan dib siraadaado aniga laftigayga ay cajabiyaan xaqiiqatan marka laga yimaado ummadda ama bulshadooda wax faa'iideynayso qofka koobaad horta waxa weeyaan faa'iidada meesha kala baxaya waa adiga waa xog baad baaraysaa oo thousands boqolaalku malaayiin baa marmarka qaar kood ku daawanaya so at that time xogtan aad bulshada la hor imanayso waa inay noqoto de xog waxa weeyaan sax ah xog waxa weeyaan aan qalaadaad ku jirin sources waxa weeyaan la isku halayn karaan aad ka soo xigatay intaba so marka cilmi baarista sameysad wixii soo baadho wax badan baad adiga horta waxa weeyaan aqoon ahaan waxa weeyaan ka kordhaya maskaxiin bay ku korinaysaa marka saaxiibta xaqiiqatan waxa qabado haba yaraatay aniga igala kulantay ma jirto okay talabaad waxaad arkaysaa baraha bulshada sibahan TikTok markaad gasho in fiidiyoyada dad badan lagu aflagaadinayo ama lagu caayo at that time hadda laakiin si dhuuxdo qofka la caayo wax lagu caayo meesha la yimid الحمد لله انت برها bulshadaan ku jiray ma arag qof aflagaadinayo qof caayo qof wax iga sheegay waayo da waxaan ay ku mutaystay bulshada lamaan hor iman simbali qofkii wuxuu wax ka faa'iideeyo ayaa baan soo bandhigay da marka in wax weyn muuqaalka hadliista aad wax tawan migtahay saacad iyo barku soo bixin isagoo shaah cabiyo iska daawan inuu ii duceeyo mooyaane lacagna kaga qaadaye de wax uga cayab horta runtii ma mutaysan marka bulshadu hadba saaxiiba wixii Allah hor timaado ma fahanti dawakaas سؤالين كلها دراساتك waxa weeyaan soo taqayir nafs marka like comment ay isbedelaan dadka emotionally ama nafsiyan isbedel ayaa ku imaada soo qofku hadaba sidoo yani uunan isku siin karin inuu isbedelka uga dhex bixi kara oo noqon kara mid wata hadafkiisa aynan saameyn markaasi reactions ka ama waxa falcelinta video-ga uu sameeyay waxa weeyaan ka imanaysa والله صاحب horta qaaf badi mentality-giisa fikirkiisa maskaxdiisa u dhisantay xaqiiqatan sida rasmi horta ku xiranta laakiin horta markaan eegno qofka saameyn ma ku yeelan karaysa like-iska iyo waxa weeye comments-kaas video-giisi laga dhiibaya ama views-ka tirada laga helaya way ku leedahay muuqaal simple hadaad maalin soo geliso dad wanaagsan daawadan wuxuu kugu dhiirigelinayaa at least hadaan meel kabar ku kaxayn inaad birina
mid lamid ah soo gudbiso muuqaalkii okay waan wixii aad ka fariisan laakiin haddaad muuqaal ku soo tabaacdo ku soo dadaasho kadibna muuqaalkii expectation iyo flashaad ka qabtaa iyo inuu heer gaari doono inteegaad ka filaysa in ka hooseeya hadduu yimaado runtii ixbaad iyo waxa weeyaan xoogaa waad ka yaranaya jabaysaa laakiin maaha hadda inaad u joojiso waxaad ogaataa qaabka keliya ta uga gudbi karaya dee waxa weeyaan waa qofku hadduu hadaf leeyahay weyaan lakin hadduu qofku bilaa hadaf yahay oo sidii aad sheegaysay qaayadiisuba tahay caan noqo markaa saaxiib siduu kaga gudbi karayo haddii xoogaa expectationska ama filashadii uu ka qabay muuqaalkiisaas ay hoos u dhacaan si male qofku waa inuu noqdo dee qof markii horeba hadaf u calaamadsan yahay hadafkiisaas ha ahaado dee caanimadan wasiilaba ha ahaato wasiilo oo hadaf kale ku gaadhay amaba ha ahaato caanimada laftigeeda u qaayo waxa weeye haddii qofka hawlihiisa kale iskugu beersan yihiin oo waxa weeye caanimada oo simbale caan doonay inuu noqdo dee ma waa walba niyadda ku hayo waxa weeyaan in even da xataa dadkan de ku xiran yahay role models ee baraha bulshada ku jira ee millionaires ka laftigooda in ay allah musta'aanay muuqaaladoodu marna dhawn yihiin muuqaalada qaarna ay hit yihiin marka waxa weeyaan wax badan ha eego aad way caanimada iyo lacagta xaqiiqatan saaxiib horta waxaan odhan karaynaa markaad caan noqoto runtii chance ama fursad badan oo wax weeyaan markii dee bulshada iskaga jirtay aan heli jirin ba horta runtii ka hor imanaya haddii noqoto waxa weeyaan midaad wejigaa ku sameynayso wejigaa ku sameynaysaa lacag badan ma ogtay markaad wax weeyaan aad iyo aad oo wax weeyaan dee dunida waad ogtahay millions baa lagu bixiyaa public figurska say wax u haysiyaan iyo hadday noqonayso mid la dhex marsanaya wax weeyaan barahaga bulshada laftigoodaba maadaama dad badan ku xiran yihiin marka horta runtii saaxiib lacag baa laga sameeya weliba dee wax weeyaan lacago meelo badan aad ka sameyn karayso marka lacagaha aad ka sameynaysa saaxiib baraha bulshaduna maaha kuwa simbali kaa soo gelaya keliya ta uun sharikaadkan waxa weeyaan daad manasaadkooda isticmaalayso hadday noqoto Facebook oo Meta leedahay iyo Google iyo YouTube iyo soo kale TikTok laakiin waa lacagaad ku sameyn karayso siyaabo kale hadday noqoto sponsors dad wax dhex mariso hadday noqoto ganacsi aad leedahay khud ku haysto bulshada duna arinta wax ganacsigaaga waa reer wala soo shaxaadeen marka siyaabo badan bay dadku uga faa'iideysan kareen laakiin bulshadeenu hadda jeer even xataa inta magaca ka sameysay baraha bulshada caanka ah sida ahayd uguma faa'iideystaan marka waxaan odhan karnaa 90% dadkan caanka ah simbali waxa weeyaan ujeedkii usoo caanimada ujeedkii waxa weeyaan ka reebeen ba caano noqdo laakiin hadaf ka dambeeya muusan jirin waa hadaf ka dambeeya jir laha waa laga dhex qofkaasi dee ma duunun maaha aakhir laftigeedana xataa waad uga shaqaysan karaysaa maadaama dad badan saaxiib ku xiran waxa dhacday baraha bulshada aan ku cusbaaba muuqaal baan sameeyey barnaamij baa jira barnaamijka waxaa la dhahdaa ashafiici baa la dhahdaa marka simple marka teleefonkaaga ka furto loga ayuu ku oranaya salli ala nabi nabiga alayhi salatu wasallam allahumma salli wa sallim alayhi muuqaal ban markaa soo galiyay barigan TikTok ta ku cusbaahay anu TikTok YouTube baan labada ku horeeyay laakiin TikTok mar dambe samaystay marka waxa dhacday anu qolaheeda la socdo halkan cadaad leeyahay degmo cadaad leeyahay waxa weeyaan hargeysa xogaa buu jirtaa ayaaba anagoo marayna ayaaba meel baanu galnay bakhaar ah waxa dhacday inankii bakhaarka hayay teleefonkiisii ka furay waxa weeyaan loga marka waxaan ku yiri halkeed niyo balkan application-ka marka application-kii aan ku sheegay shafiic baa ka dhaxadlay salli ala nabi buu yiri la application-ka halkeed ka kaantay baan ku yiri nuxur team waaweyn oo TikTok ku jira ka arka bus badan bay iga muuqda safar baan ayada faati marka wallahi maalintaas aan dhaadino war ma khayrka cadaad la maraya joojin sidii baan saaxiib sidii marka dad adduun nugmanihin aakhirana wax weeyaan iyo laftigeeda koobkeeda baan dhaxsiin dhigato marka aakhiriya adduun buu uga faa'iideysan karaa runtii waxaad ogsoonaataana muuqaalada samad arag diiniga ah hadii aad si wanaagsan ama si wax weeyaan creativity hal abuur la soo gudbiso waa ku ugu views-ka badan loogu daawashada badan yahay okay marka bulshadu waxa weeyaan ha eegina u dhankan kale aakhirada maxsiliid aad badan ma hasantahay horta waqtigaaga aad baan kaaga mahadnaqnaa kale muuqaalka waxaan iska sii kale xalqada waxaan ku sii dhownahay gabagabadii gunaanadkii dhalinyar fara badan baa jirta oo rabta markaasi inay muxtawo faa'iido leh ay ummadda u soo gudbiyaan caqabadaha aynu tilmaamayna fiis la'aanta maxayga kanka waxaasoo dhanna way ka hor yimaadaan dadka kale caanka ee la buunbuuninaya maala yacni ku caana bal taliyad waana wixii aad u soo jeedin lahayd
dadka insha allah صاحب waxa weeyaan horta mar walba waxaad ogaataa dunidan shar iyo khayr baa ku noolaa mar walbana sharka badan 8 bilyan baa dunidan ku nool maybe marka la dhahdo muslimiintu 2 bilyan bay soo gaareen 6 bilyan ka kale waxa hubanti ah inta madawada 2 bilyan waxa lagu daraya shiicada xataa lagu daraya shiicaduna waxa weeyaan dad saxan ma waa iska gaalo kufaar weeyaan waliba gaaladu sida islaamku u nacayeen si ka darmoonay kuwaas xataa la nagu tirinaya soo marka haddaynu xataa badino 2 bilyan nidhaahno 6 bilyan ee kale waa kufaar weeyaan soo mar walba sharka iyo khayrka dunidan aan ku noolahay sharka ku badan okay adigu hadii aad wanaag soo gudbinayso inta ummadda wanaag la doonaysa ee wax wanaagsan doonaysa inay u soo tabiso iyo inta xumaanta wada mar walba waxa badan inta xumaanta wada haday noqoto naag isluxaysa haday noqoto nin isluxaya horta igu daranaya yaanka ilaahay waa ceeb weeyaa nin weyn ya Allah musta'aan haday noqoto dad iska shactiraya qosolmadu intaasi waxay boqolkiiba 200 ka badan tahay inta wax weeyaan muxtawaha haadifka wax weeyaan ummadda wax weeyaan sama iyo wax weeyaan aqoonta ay ka dheefayaan uu ku jiro soo gudbinaysa marka fariintan u wada wax weeyaan hadba hablo iyo inamo wax weeyaan kii doona waxa le dadka doonaya ama dhalinta doonaysa inay bulshada wax san oo wanaag la wadaagan waxaan leeyahay kow waxa horta aad soo gudbinaysaan ahaan noqdo wax weeyaan waxa Allah subhanahu wa ta'ala oo raali ka yahay oo ilaahay deedan isku leeyahay waa abdayna bulshada iskana ilaahay isqabsataan oo ilaahay isqabsanaa taas waa qodobka koobaad qodobka labaad waxaan markaad soo gudbinayso kow ha noqdo wax adiga hobbigaaga hood ku raaxaysanayso oo wax yani mawduuc aan xiiseynaya ama wax weyn dhibaato badan aad ka marayso soo gudbintiisa iska daaban ku leeyahay waa markaad bilowga tahay runtii support badan heli maysid marka waxa hadaan hobbigaaga ahayn xaqiiqatan waad ka niyadjabaysaa laakiin markuu hobbigaaga yahay carqalad ama dhibaato walba oo ka hortimaada waa ma xanoqonay mid aad ka talaabsato waa markaad waxaan sameeyay ku raaxaysanaysaa qodobka saddexaadna wuxuu yahay kulli hadii aad dadaasho Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu in Allah la yud'i ajra al-muhsinin عام بعد نقنه عن ماذا يعني يكون نقن قاية أكون نقطة وسيلة وحويا هنكاغو كبلارنا هذا وحويا أنا نقطة public figure هل aad baad mahadsantahay dhamaantiin idinkuna aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan ee markaasi u dhageysanaysaan xalqadeenan waxaan rajeynayaa insha Allah in xalqadaha kalena ku kulmi doono ha ilaawina si aynu u soo gudbino mowduuc tan ka badan insha Allah in aad commentiga hoose ku soo qortaan channelka ku xidhnaataan oo subscribe tiraahdaan soo kale waxaan halkan uga mahadnaqayaa Bilo Capital iyo markaasi Arda Films iyo dhammaan cidii ka qayb qaadatay barnaamijkan suurtagelistiisa aad baad mahadsantihiin